wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ayaa maanta si rasmi ah magaalada Burco gaar ahaan xanaanada dhexe uga daafurtay barnaamij cusub oo wacyigelin ah kaasoo hirgelinaysa wasaaradda caafimaadka isla markaasna kor loogu qaadayo daryeelka hooyada iyo dhallaanka kaasoo haweenka loogu wacyigelinayo inay had iyo jeer ku xinaadaan xanaanooyinka barnaamijkan ayaa mid kor u qaadaya daryeelka iyo caafimaadka marka ay dumarku ku jiraan waqtiga dhaqmaatiga ugu horeynba waxa barnaamijkani sharaxaad ka bixisay ugaaso jaamac guuleed oo ah madaxa kala korinta wasaaradda caafimaadka iyo Xanaan Cawad Axmed oo ah madaxa hooyada iyo dhallaanka ee wasaaradda caafimaadka waxaana sharaxaad ka bixiyeen barnaamijkani halkan waa xanaanadii dhexe ee magaalada Burco halkan ku dhagan board ay ku qoran tahay kulay afka qalaad laakiin ka tarjumaya dumarka dhaqmaatiga ah ama ugubka markaynu leenahay waxa weeyaan barnaamij cusub oo lagu soo kordhiyay hawlihii laga qaban jiray xanaanada ama goobaha caafimaadka waxa ay ka tarjumaysaa waxaanu doonaynaa waxaynu u naqaanaa had iyo jeer ale hooyadu markay uurka leedahay ama laba saddex ay dhasho in xanaanada la xidhiidho marka waxa la doonayaa in la baro in mar walba ay u baahan tahay hooyadu gabadha marka ay tahay xataa in ay xanaanada u baahan tahay oo gabadhu 15 jir markay gaadho ilaa iyo inta ay dhaqmaantiga ku jirto ama xilliga dhalmada ay ku jirto ay xanaanada la xiriiro waxa laga yaabaa in la yiraahdo maxay inanta yar ka doonaysaa maxay ahayd 15 jirka ama ka weyn maxay ka doonaysaa xilliga gashaantida tahay xanaanada waxa weeyaan meel loogu talagalay hooyada iyo daryeelkeeda iyo daaweynteeda sida aawadeed waxa la doonayaa in ay sii ogaato oo ay sii barato waxyaalaha laga helo waxa la doonayaa in ay marka ay hadda caadada ku xanuunsato ama teetana iyo waxa ay ka baqdo nabar mudo ay ogaato ay la socoto walaal dhalinyaradii inta badan ma tagaan goobaha caafimaadka ilaa marka la guursado ay inantaasi goobaha caafimaad tagto mooyaane waxaan oran lahayn hablu dhalinyarada markay yihiin inay ku xidhnaadaan goobaha caafimaadka oo ogaadaan iyada inay furan tahay oo ka ogaadaan inta aanay guursan ka hor iyo kadib xaaladooda caafimaad waxyaabo badan baa dhacay inta badan oo qofku markuu goobtii caafimaad tago uu isku ogaan karo laakiin haddaad la xidhiidho mar walba waxaad ogaan kartaa xaaladaadii caafimaad halkay marayso marka hooyada markay uurka leedahay haday isku aragto calaamadaha maxay tolay bararo kale dhigbaxo kale inay hooyadu qalasho kale ma carabka calashato kale macdan xanuun oo kale haday isku aragto inay xanaanada timaado si degdeg ah si wax looga qabto loo hadaan ku hadlayo magaca hay'adda UNFPA ay mar walba ay u shaqeysaa hooyada iyo dhallaanka iyo mujuqa walibana gaar ahaan ilmaha yar ee imka dhashay waxaan rajaynaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo in gobol walba ka shaqeyno dhankoodana qaar kamid ah ka qaybgalayaashii wacyigelintaasi ayaa soo dhaweeyay isla markaasna ballan qaaday inay ku xinaan doonaan xanaanooyinka isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Togdheer Dr. Aadan Cilmi Diiriye Cigaal oo dhankiisa halkaasi ka hadlay ayaa guud ahaanba ugu baaqay bulshada gobolka Togdheer inay ka faa'iideystaan barnaamijkani mashruucan cusub aynu soo kordhaynaa ina ogaataan inantu markay 15 jir gaadho ilaa inta 49 inta dhaqmaatiga hablu dumarku leeyahay in xanaanada ku xinaadaan ma aha marka buktaanada timaadaan meesha waxa lagu bixinayo service-ku sidoo yahay ina wixii dhan ka wada haysan ba loo baahan yahay iyo ay waxa lagu bixinayo dhan hadii ma la ka waraysto ina xanaanada ka war haysan Maxamed Ibrahim British TV-ga qaranka Soomaaliland Burco.